dadka oo aad u caraysnaa ayaa ku dhawaaqayay inay si aad uga soo horjeedaan tallaabadaasi iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyay Trump inay tahay mid cadaalad darro ah waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo ururay masjidka Umar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho ay VOA ugu warameen dareenkooda anigoo magacayga Xasan Cabdullaahi Dabar waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacaarkayga muujiyo dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta mideynaysa maxaan magacayga waa Garaad Xasan kana mid ah jamaacada masaajidka Umar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho maanta Jimcaha waxaan dareenkana ku muujinaynaa falkii foolxumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taas oo ku magacaabay caasimadda muslimiinta caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus oo ku magacaabay inay leedahay caasimadda tahay Yuhuudda taas waa ka dhidhinaynaa insha Allah taala intii qof muslim dhiig uu ku jirona waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay ka digtoonaadaan waxyaabo la mid ah anigoo magacayga Abshir Aweysiiso haddaan nahnay ummadda muslimiinta dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan muslimiintana ay ka dhidhinayaan warkan culimada ka qayb galay dibadbaxa maanta oo ka mid ahaa Sheekh Cabdi Xayi imaamka masjidka Umar bin Khadaab ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa meeshii nabiga sallallahu alayhi wasallam loo dheelmiyay oo imaam ugu noqday ambiyadii oo dhan halkaas laga sii dheelmiyay oo samaawaadka loo qaaday kadibna Umar bin Khadaab radiyallahu anhu magaalo uu furay ay tahay taariikh dheer muslimiinta ku leh in hal mar la yiraahdo dadkii dhawaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka magaalada soo galeen ee qabsadeen la yiraahdo idinka iska caasimad idin tahay taas go'aankaas oo aad iyo aad dareenka muslimiinta u taabtay ayaan anagana qayb ka nahay Soomaaliya hadaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah waxaana dawladdu ugu baaqday Mareykanka inuu si dhab ugu fiirsado dhibaatada go'aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka bariga dhexe ee guud ahaan caalamka maanta Jimcaha waxaan dareenkana ku muujinaynaa falkii foolxumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taas oo ku magacaabay caasimadda muslimiinta caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus oo ku magacaabay inay leedahay caasimadda tahay Yuhuudda taas waa ka dhidhinaynaa insha Allah taala intii qof muslim dhiig uu ku jirona waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay ka digtoonaadaan waxyaabo la mid ah dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta mideynaysa maxaa yeelay Donald Trump kowdii hore markii la dooranayay uu sheegay inuu muslimiinta dhammaan ka soo horjeedo aniguna waxaan sheegayaa oo muujinayaa insha Allah taala in muslimiinta dhammaantood ay midoobaan insha Allah meesha uga baaqayaa